السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaashiin uma deeq waxaan halkan ka salaamayaa walaashay Faadimo Buraanbur iyo familkeeda odaygeeda kulli iyo ciyaalkeeda meel kasta ay joogaan abaayo macaan ilaahay samarkaada iyo dulqaadkaada iyo iimaankaada ilaahay ha ku siyaadiyo maasha Allah tabaarakallah walaashay macaan ilaahay raxmaanka in habeen iyo maalin waxaan kaaga baryaa ilaahay inuu si fudud oo kheyr qabo ilmahaada maxay ahayd gacantaada iyo gacanta maxay ahayd gacantiina oo ku soo celiyo oo ilaahay ayko nabad qabo oo qurux badan oo badbaado qabo oo maskaxiyan iyo jirib ahaan buu caafimaad qabo ilaahay gacantaada kulligood ba kugu soo celiyo maxay ahayd maasha Allah ilaahay sabarkiina ha idii siyaadiyo ilaahayna maxay ahayd dulqaadkiina gadaalsamadii nabi yuusuf Allah idigu soo bedelo mar walbana ducada afka ku haayo maxay ahayd mar walbaba subxaanallah iyo walaa xawla walaa quwwata illa billah al-cadiim mar walbaba diris la noqdo tasbiixda ilaahay raxmaanka ee habeen walbana Soomaalida meel kasta ay joogaan salaatul leylka haloo kaca haloo dukada quraanka haloo akhriyo masaajidada haloo soo duceeyo walaasheen ducada haloogu dadaalo sidii ilmaheena waa ilmo Soomaaliyeed waa ilmaheena kulligeen wallahi wiilkaas yar maxay ahayd oo Salmaan oo afkiisa ka hadlayo ilaahay ha barakeeyo ilaahay il iyo aafamo tuso ilaahay ha maxay ahayd ha ka soo badbaadiyo afkiisa ko maxay ahayd la mahdi lahaay oo ilaahay si degdeg ugu soo saar lahaay ilaahay ha u kaso maxay ahayd waa wiilkeyga maasha Allah curudka oo la egyahay ilaahay raxmaanka sida wiilkeyga aan maxay ahayd ugu xanuunsan lahaay oo qof walba wiilkiisa sida ugu xanuunsan lahaay oo dareema maxay ahayd maanta annagi oo halkaas lay ka aragnay xanuun dareemayno marka hooyadii iyo aabihii iyo ehelkiina ka sii daran maxay ahayd laakiin maasha Allah samarkiina iyo dulqaadkiina iyo iimaankiina Allah idii siyaadiyo famil maasha Allah tabaarakallah waxa tihiin Soomaalida maasha Allah oo hormuud u oo lagu daydo inta culeyska haysto oo ilmaha ay ka maqan yihiin oo maanta gacantooda ku jirin ee ku daydaana tihiin oo hormuud u oo maasha Allah sharaf iyo diin iyo akhlaaq ilaahay oo siiyay habeen iyo maalin waxaan idii soo baryeynaa ilaahay inuu ilmihiina gacanta ku soo celiyo inta yaro aan badneen oo iska war xun oo maxay ahayd waxyaabo aan idii qalmin oo idii soo qoreysa waxbaha uu arkina maxay ahayd qof walba nafsadiisa iyo maanta wuxuu afkiisa ka sheego asaga maxay ahayd waxay ku tahay aqli xumo iyo aqabad ay ku noqonaysaa ilaahayna maxay ahayd ilmihiina waa ilmaheena kale inta ilaahay waxa idiga baryeena ilaahay inuu gacantiina ku soo celiyo aniga walaashay macaanay maxay ahayd halkan baa maxay ahayd aan ka fiiriyaa maalin iyo habeen aan kala socdaa xilli hore aan duca maxay ahayd xilli hore maxay ahayd riyo aad u wanaagsan kuugu riyooday ilaahayna waxaan ka baryaa insha Allah taala maxay ahayd ilmahaada ilaahay guul iyo gabanimo ku dambeynaysiin gacantaada ku soo noqon doonaan ilaahay idinkiisa insha Allah intay ku geysteen maxay ahayd ilaahay ka jeesinayo ilaahayna ilmahaada oo barakeysan oo diin ahaan iyo tarbiyad ahaan iyo jir ahaan u caafimaad qaban ilaahay gacanta cadawga Allah ka soo bixiyo walaashay macaanay ilaahay adin geesinimadaada iyo kartidaada iyo gabanimadaada Allah ku siyaadiyo insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.